software engineering waa mid ka mid ah kulliyadaha ugu muhiimsan maanta caalamka marka la eego teknoolajiyadda. Kulliyaddan waa qayb ka mid ah cilmiga kombiyuutarka, waxaana lagu bartaa inta badan design garaynta, horumarinta, tijaabinta, joogtaynta qaybaha kala duwan ee softwareska. Kulliyaddan inta badan waxaa awoodda lagu saaraa luqadaha kala duwan ee programmingka si qofku awood ugu yeesho in uu dhiso noocyo kala duwan oo softwares ah, sidoo kalena uu cilad bixiyo tijaabiyana. Qofka barta kulliyadda software engineering-ka wuxuu awood u yeelan doonaa in uu dhiso noocyo kala duwan oo softwares ah sida computer gaming iyo operating system oo ah softwareka ugu muhiimsan, kuwaasi oo ku shaqeeyaan wax walba oo ku kaca software sida kombiyuutarska iyo taleefannada. Waxaana ka mid ah operating systemska loo yaqaano Windows, kaasi oo caan ah inta badanna Soomaalidu isticmaasho. Waxaa jira sidoo kale operating systems kale oo fara badan sida Linux iyo iOS. Wuxuuna sidoo kale dhisi karaa qofka software engineering-ka ah applicationada sida Facebook, TikTok iyo WhatsApp iyo sidoo kale applicationada la midka ah. Sidoo kale qofka software engineering barta wuxuu dhisi karaa applicationada sida Facebook, WhatsApp iyo TikTok, isagoona soo saari kara application kasta oo looga baahdo ama laga codsado. Sidoo kalena wuxuu samayn karaa applicationada gaming-ka ah sida PUBG iyo kuwa ciyaaraha laga ciyaaro. Qofka barta kulliyaddan wuxuu ka shaqayn karaa goobo kala duwan sida goobaha lagu sameeyo baabuurta iyo diyaaradaha iswada, isagoona abuuri doona softwarada ay ku shaqayn lahayn ama lagu hagi lahaa. Wuxuuna sidoo kale ka howlgali karaa wasaaradaha difaaca, ammaanka internetka iyo sidoo kale wuxuu ka howlgali karaa shirkadaha ganacsiga. Mararka qaar qofka software engineering barta uma baahna inuu ku shaqeeyo shakhsi, waxa uuna awood u leeyahay inuu isagu isku tiirsanaado. Markasta oo teknoolajiyaddu horumarto, waxaa siyaada baahida loo qabo qofka software engineering-ka. Kulliyaddan waxaa laga helaa jaamacado kala duwan oo dalka iyo dibadda ku yaala.